qiso cajiib ah. Samirku waa furaha guusha qoyska. Samirka aad u samirto qoyskaaga waa jacayl. Dulqaadka aad dulqaadato dadka kale waa xushmad. Samirka naftaada waa kalsooni. Sabarka aad ku samirto qadarta Alle waa iimaan. Kow sano kadib guurkoodii waxa uu dhashay ilmahoodii u horreeyay. Waxay ahaayeen lamaane isjecel. Wiilkuna wuxuu ahaa tufaaxii indhahooda. Maalin wiilkoodii oo 2 jir ah ayaa aabihii arkay dhalasho laba oo furan. Wuxuu ka dahsanaa shaqo, wuxuuna u sheegay xaaskii inay furka ku xirto, armaajada korkeedana saarto. Hooyadii oo jikada aad ugu mashquulsaneed, gabi ahaanba way hilmaamtay. Wiilkii ayaa arkay dhaladii, wuu qabsaday, wuuna wada cabay. Waxay ahayd sharoobo dadka waaweyn loogu talagalay inay hal fur ka qaataan, carruurtana khatar ku ah. Goortii ilmihii dhacay, hooyadii ayaa ula carartay isbitaalka, halkaasoo uu ku geeriyooday. Hooyadii qaracan iyo argagax ayaa iskugu darsamay. Waxay ka sii naxsaneed sidii ay saygeed u wajihi doonto, maadaama ay arrintan sahlatay. Goortii aabihii oo walbahaarsan yimid isbitaalkii, uuna arkay meydka ilmihiisii uu sanadaha badan sugayay, wuxuu eegay xaaskii oo oohin wejigeeda qarisay. Wuu soo ag istaagay, garabka ayuu gacanta ka saaray. Wuxuu ku yidhi 4 eray: maxaad u ilmeynaysaa? Waan ku jeclahay gacaliso. Samir iyo iimaan Allah inaga siiyo. Way gariirtay hal mar, marnaba ma filanayn hadalkan oo kale. Waxay sugaysaa canaan iyo qaylo. Falcelinta ninka ee filanwaaga ah waa dabeecad ku dhisan garasho qadarta Alle, sabar, deganaan iyo faham nolosha ah. Inkastoo ay xanuun badneed sida ay wax u dhaceen, haddana ilmihii waa dhintay, marnaba dib lama soo celin karo. Wax natiijo ahna ka dhalmayso inuu cillad iyo qalad u yeelo hooyada. Hooyaduna way weyday ilmaheedii. Waxay xilligan u baahneed waa taxsi iyo naxariis. Taasina waa wixii uu siiyay. Mararka qaar waxaan waqti badan ku luminaa iyo mas'uuliyad iyo eed iska leh, hadday ahaan lahayd xiriir lamaane, mid shaqo ama mid dad aan naqaan. Waxaana dhaafa kalsooni iyo kalgacayl ay dadka xiriirka ka dhexeeya kala heli lahaayeen hadday istaageeraan. Haddaba miyaysan ahayn wax aad u fudud inaan cafino kuwa aan jecelnahay?